بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد شيئا. وفرقي سدحات وأن كجه الليني هرجع أسباب تيسا يو داوديس هرجع وصوف السري أسباب تكنتنا وصو شرحني إلهي نوافجي daawada iyo qaabka loo xaliyana waxbaan ka soo sheegnay fadhigiina ugu dambeeyay. haddana waxaan gabagabeynaynaa insha Allah fadhigan qodobo inooga dhimanaa xalka dagaalada macno la'aanta ee muslimiinta dhexdooda ka jira. waxaan soo marnay soo sheegnay haddii dhiiggan daadanaya sababtiisu uu yahay mafaahiim khaldantay oo diin ku abtirsata, qaabka loo xalinayo oo ay tahay in mafaahiimta la saxo oo aqoon iyo cilmi iyo wacyigelin lagu saxo, munaaqasho cilmiya iyo ciddii markaa sharkiisa si kale loo reebi waayo inay markaa bannaan tahay min baabi dafci shar in markaasi loola dagaalamo. waxaan kaloo soo sheegnay hadday sababtu tahay qabyaalad, iyadana qodobaynu soo tilmaannay xalku noqon karo way ka mid tahay. qabyaaladdu waa cudur bulsho in la qiro horta oo la ogolaado in la jiran yahay, bulshadu jiran tahay, kadibna sidii loo daaweyn lahaa loo islaaxin lahaa looga wada shaqeeyo oo la isugu tago oo la isu kaashado. dadka bulshada daaweynaya islaaxinaya inay iyagu fayow yihiin. waxaan soo tilmaannay waxyaalaha wax daaweeya inay ka mid tahay caamilu zaman, wakhtiga socdiyo isbeddelka bulshada ku socda inuu qayb ka noqon karo, in badiil sharci ah. qabyaaladan dadku waxay isugu dilayaan waa nooc oo insurance oo qabiilku waa nooc caymis oo kale ah oo ruuxu markuu ku nool yahay bii'a qabyaaladeed, markuu ku nool yahay reerku wuxuu u yahay sidii caymis oo kale waay. wuxuu rumaysan yahay reerka la'aantii inuu soo badbaadi karin, wixii dhib ay soo gaadhsaday in lala qaybsan, in isagaa uu isku difaaci karo. marka insuransigaasi insuransi bedela waa in dadka la siiyo, ama waxay noqon kartaa dawlad cadaalada, ama waxay noqon karaysaa in raabita iimaaniya oo mabda' diineed, walaalnimo diineed inay dadka u beddesho. waxaan soo tilmaannay inay ka mid tahay xuluusha ka mid noqon karto hoggaanka dhaqanka oo la islaaxiyo oo dhanka wanaagsan loo beddelo. waxaa ka mid noqon karaan nidhi siyaasadda oo meel lagu hardamo inta badan ah, iyo in qabiilka la kala fujiyo oo la kala madax banneeyo. waxaa ka mid ahaa
in xeerarka qabaa'isha ee fududaynaya in la isdilo jariimada iyo dhiigga daadanayana fududaynaya xeerarka in dib loogu noqdo shariicada khilaafsan oo wixii shariicada khilaafsan xeerarkaasi la hagaajiyo haddii uu yahay sababta dagaalku ay tahay sabab siyaasadeed iyadana waxaan soo tilmaannay xalku inuu noqon karo qodobadan wax ka mida shariicada axkaamteeda oo la dhaqan geliyo oo andimadan iyo dasaatiirtan iyo xeerarkan la dejistay wixii shariicada khilaafsan meesha laga saaro shariicaduna ay noqoto ummaddan waxa u talisa ilaahay baa yaqaana addoommadan isagaa abuurtay dantoodii iyo maslaxadoodana isagaa yaqaana meeshay dantoodii iyo maslaxadoodu ku jirtana waa kitaabkuu soo dejiyey iyo dhaxalkii rasuulku ka tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaan soo tilmaannay nidaamka hadduu nidaam meel ka jiro haba tabar darraadee in la ilaaliyo oo in la xoojiyo meeye aan la baabi'inin ama aan lagu khamaarin maxaa yeele nidaamku si kastoo uu daciif u yahay ama wax uga khaldan yihiin la'aantii buu dhammaa waxyaalo fara badanna ma dhaceen hadda haddii nidaam xoog badan meelaha ay ka jireen wax ka dhacayaan si unbaa loo xakamayn lahaa waxaan tilmaannay yacni fawdadu mar walba fawdada wax ka daran ma jiro waxaan soo tilmaannay siraaxa iyo looltanka siyaasiga ah ee marka dambe isu beddelaya gacanka hadalka siyaabaha lagu xallin karo inay ka mid noqon karto tawliyatul aslax in mar walba lagu dadaalo dadka la heli karo kolba inta ugu roon in xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibto waxay ka mid noqon kartaa baan nidhi nidaamkan hadda soomaalida haysta biqabdi nadar ma saxsan yahay mise waa khaldan yahay hadda aan hadda xukumayna ma ah laakiin nidaamkan hadda jira ee ku salaysan siyaasaddu inay qabyaalad ka soo dhex baxdo oo qabiil iyo reer ka timaaddo waxaa xagga sharka dhaama inay isu beddesho xisbiyo mashaariic siyaasadeed leh oo aan markaasi reero salka ku haynin bacdu shari ahwan min bacdi waaye sharku waa isdhaamaa dhibkuna waa kala fududyahay waxaan soo tilmaannay siyaasaddu khilaafkeedu waa inuu yeesho dawaabid waa inuu xadhig xidho leeyahay khilaaf siyaasadeedanu xad lahayn qasab marka dambe wuxuu isu beddelaa gacanka hadal iyo burbur oo waxaa ka mid ah nidhi in maalan nidaamkan hadda la wato qoladii dejisatay ee ay ka timid asalkooda dhibaatooyinkan inuu leeyahay way og yihiin waxoogaa marka dawaabid iyo xuduud waxbay ku xidhxidheen oo ay ka mid tahay in laamaha iyo hay-aadka amniga ayna siyaasadda qayb ka noqonin iyagu ay waddanka iyo nabadgelyadiisa bas ilaaliyaan oo ay ka mid tahay maalan goortay isqabsadaan meel kala saarta inay yeeshaan waxaana yidhaahdaan almaxkama dastuuriya maxkama dastuuriya way og yihiin in la isku rogmani haddii markaa isqabtaan waa inay jirto labadan isqabtay maxkamad ka xoog badanoo go'aankay gaadho uu cid walba ku fulayo oo wax xakamayn karta ayagii dejistay baa qaabkaas sameeyey waagii markay hadda doorashadu Kenya ka dhacday haddaynan maxkamaddaasi kala qaban lahayn waa la isku rogman lahaa soo ma waxbay u samaysteen marka waxbaa loo sameeyey khilaafka siyaasiyiinta ee damacoodu khariban yahay xakameeyay samaysteen waxaa ka mid ah siyaasiga damaca siyaasaddu ku jiro sanqaaf waxaa jira masaalixda guuda oo uusan taaban karin oo agtooda dembi ka ah maalan inuu maalan maago oo kale reer mucayana ama wax dadka qaybinaya uu la yimaado waxyaalo waxaa jira nabadgelyadoo kale shisheeye iyo dawlad shisheeyadoo kaleeto inuu barnaamij la samaysto kale waxyaalo waxaa jira agtooda mamnuuc ka ah oo khiyaano qaran ay u yaqaanaan waxyaalihii iyaga ahaa iyaga waxay ugu talagaleen
siraaca iyo looltanka siyaasadeed sharkiisa inay kaga badbaadaan ila waxbuu wataay innaga marka waxa weeye bahalkii oo saamihiisii wata saamihiisii oo dawaabidiina aan lahayn ayay Soomaali ku dhex jirtaa waa mid keenaysa marka mar walba xaalad isbedela markay iimaanaysaba in wadnaha farta la saaro maxaa dhici doona la yiraahdo oo loo baqo intii yareeyday waxoogaa la yara amaamuday la yara unkay inaas waan soo sheegnay waxaan tilmaanay oo kale qaadka iyo siduu isaguna qayb uga yahay dagaaladan hadda Soomaalida dhexdeeda ka jira asagana waxaan tilmaanay maxaa xal noqon karaa see looga gudbi karaa dararkiisa see bulshada looga badbaadin karaa inahaasi markii la soo koobo iyo qaacidadii kulliga ahayd kulli u noqonayay oo ahayd dhibaatadan dhacday ama taale caalamul islaami aan la wadaagno iyo wixii inaga gooni inugu aba wuxuu ka imaanayaa ilaahay oo dambiye laga galay rabbigan tabaaraka wa tacaala sharcigiisa la khilaafay xalka rasmiga marka waxa weeye in inta la iskarto la soo noqdo ilaahay sharcigiisa loo soo noqdo la toobad keeno xalka asaasiga kaas waxaan kala dhawaa qodobo hoos galay waxa inoo dhimareed marka oo xalay aan rabnay inaan raacino waqtigu naga dhacay waxa la yiraahdo islaahu dhaatil bayn yani heshiisiin iyo in laga shaqeeyo fitnada in la damiyo in dadka la isu soo jiido in wax la xalliyo dowrka iyo kaalintaasi waa inay xoogaysato nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi intuu noolaa waa kan sheegnay oo dhowr goor baa waxa dhici gaaray isku dhac gacan ka hadal ah oo saxaabada dhexdooda oo marar badan u noqonayay qaabkii asal ahaan ay u dhisnaayeen oo reerka ahaa oo si khasraj isku yar dhici gaaray mar muhaajiriin iyo ansaaro yani wax weeye laga shaqeeyay in la isku diro isku dhacaan marka wax weeye mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaasi uu soo baxo oo cudurkaasi waxoogaa madaxa soo qaadaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku hawlin jiray inuu xalliyo heshiisiin iyo dejin iyo yani wax buu geli jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam حتى مناسبتها قاركود نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة فرض كأهل جماعة إذا كل عفتي أسوى الله وقله هشيسين يا رسولك صلى الله عليه وسلم أو كسود بالعي رسولك صلى الله عليه وسلم طيب مركا دور كاسية كالنتا سوى لك أمر ما هي ضد كويس قبنا يعني فعلا ضدكم مسلمين هذا إن مسلمين أيهين ومؤمنين يهين معناه هذو ما إني معصومين يهين إن إسكول لعان وضجال لمانا إسلام نمدودي إيمان كودي ماشى كما سارس لكن هو خلط لعيه والله بالقرآن كوحي نويري وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لبكوا حوت وإيمان لوقري يا هذا ندق الله مي حكمة النصوص تأيود الشدان أهل السنة دنبيادة ووين كفرك كسكي سمين تودا إن الدين تلوجا بحن عائلة دنبيادة ووين وحاكم ذا روح مسلم والدشاء ما الله دقالنت صوما هذا مع ذلك يقول الله بكوا حودا ودقال مي أيو الله وحكوا شيء لوضوا بين المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا marka muuminiinta dagaal waa dhex maraya waa wax Ilaahay hore u qadaraysan sheeg waxay u baahatay marka in la helo mar walba dad u taagan islaaxinta iyo fidnada inay damiyaan dadka isu soo jiidaan quluubta la is ogolaysiyo hawsha ka shaqeeya Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ayada ka sii dambaysa Allah waa kayiri innamal mu'minuna ikhwatun إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين وولاله لبضن ولالها إذا إذن كنا ولالتهين مركي دحضوا وحدبات التماد هشيسية والله تبارك وتعالى بين أخويكم يقولون وولاله قلنا الله اللي هشيسية وولاله ولالات ودتهين وحن ماشي الصوق قال كبحي أو هشيسية والله تبارك وتعالى أعماش إلهي اللي وجود هذا تقوى وين بكمتها إن اللي يسوتاجو إصلاح أنت بالشدة
يهشيسينت wax ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu qiimo badan bay kamid rasuulkeena waxa ka soo sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ala akhbirukum bi afdala min darajati as-salati was-siyami was-sadaqa miyanan idin sheegayni wax ka fadli badan oo ka qiimo badan darajada soonka iyo salaada iyo sadaqada waxay yiraahdeen bala noo sheeg rasuulka ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam islaahu dhaati al-bayn dadka dhexdooda la islaaxiyo dadka dhexdooda la islaaxiyo qoys isku dhaxsan laba walaalo isku dhaxsan laba qabiilo isku dhacay laba kooxood isku dhacay laba siyaasi oo isqaniinay yaani in dhexdooda la heshiisiyo markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa fasadu dhaati al-bayn hiya al-haliqa dadka dhexdooda oo fasaad dhaco oo isku dirma oo isnaca nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam midda waxiirta maxay xiirtaa waxay xiirtaa dadka diintooda adduunkooda iyo diintooda way xiirtaa maxay dadku markay isku dhacaan diin isu hambayn maayaan diintu way dhiman adduunyadoodina way dhimanaysaayo nabadgeliyadii iyo wada jirkii iyo midnimadii adduunkooduna waa dhimanaya kadibna gaalo iyo shisheeye inay u gacan galaan bay qarka u istaagayaan marka waa xaaliqa waay waxa ma reebto siday sakiintu ay timaha u xiirto kale ayaa wax weeye xaaliqowta u xiirta macnahaas uu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abu Daawud iyo waxa soo saaray Ahmad iyo Tirmidhi qeyrkood waa xadiis saxiix marka in la helo islaaxaasi waa laga maarmaan oo bulshada dhexdeeda aad loogu celceliyo way ka dhaadhacdo oo xoog la saaro in la isu tanaasulo la barto in la isu tanaasulo in la isu sabro in la isu dulqaato oo gacantan uu inaga soo horeysa gacantu ay noqoto hadiiba laga maarmi waayo mar xal kale la waayo laakiin annaga haday laba wada hadlaan gacanta kow ah gacantaas marka dibkooday wadata saas daradeed sabirka iyo adkaysiga iyo dulqaadka isu tanaasulka iyo waa macaani loo baahan yahay bulshadu inay ku barbaarto ay barato waana meesha sharafka iyo qiimaha lagu helo waay nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay xadiidka qisadiisu ay ahayd qisadiisa ka horeysa xasan ibn ali ibn abi talib wiilkii nabigeena uu abtigo uu awuga u ahaa sallallahu alayhi wa sallam ee gabadhiisu ay dhashay Fatima radiyallahu ta'ala anhuma حسن بن علي dagaalkii Sham oo Muawiya hogaaminay iyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda oo marka khaliif aha dagaalkii soo bilowday asagoo dagaalkii jira oo aan heshiis rasmi ah laga gaadhin ayaa Ali la dilay Ali markay khawaarijtu dileen xilkii iyo mas'uuliyadii aabihii waxa la wareegay Xasan ibn Ali ibn Abi Talib ciidamadii aabihii hoos imaanayay dhulku ka talinayna Xasan bay hoos tageen colaadiina wali way jirtaa Xasan markuu xilka qabtay waxa dhacday Muawiya ibn Abi Sufyaan ayaa waxa lagu yiri Muawiya ciidamadan Xasan uu wato ka taayibtan guutooyinkan iyo ciidamadani ciidamo carar iyo inay laabtaan diyaaru ama waa ciidamo inay wax baabi'iyaan iyo inay wax qabsadaan mooyee aan noqonaynin oo aan gadaal u laabanayn ciidamadu ciidamo sahlan ma ah Amr ibn Aas baa ku dhahay Amr ibn Aas oo ragii Muawiya la jiray kamid aha ayaa sidaa ku dhahay ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha ciidan kan Xasan uu wato wariyo ciidan sahlan ma hawshan ma fududa Muawiya markaas wuxuu yiri man lidarari almuslimiin maanta hadii la isku rogbado oo ciidan kan Xasan wato iyo waxaynu wadano inta fooda la isgaliyo la isku baaboo xaruurta muslimiinta ee agoomoobi doonta
يا قبن دونا بودي يلا ماشي أقوم بدن باقي ما أنت صوما إذا مدن هذا يسكون رقمدان أقوم بدن يرجعين بدن يوم هو هاي بدن باقي دالان دونا وردتك يا بقم بودي معاوية عمرو بن عاص باوحيد يا عمرو بن عاص مايا وحيد نكلي لو أني بمرك على تشوجا أو جوب تشوجا اللي لأن عبد الله بن عامر يا عبد الرحمن بن سمرة مركز وحيد هذين حسن أنك أن أدنو أنه هشي سبردينلو واي هي بالي كعادة هل كوا حكلو تشوجا صحابي اللي أبو بكر نفيع بن الحارث نفيع عمرك وحيد نبي محمد بن مقلي صلى الله عليه وسلم oo dhahay isagoo minbarka saaran oo khudbaynaya ayaa waxa soo galay oo arkay wiilkiisa Xasan markaa waa yariye markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ibni hada sayyid wiilkaygani waa sayyid buu nabigu sallallahu alayhi wasallam sayyidku waa ruuxa sharafta badan ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وفي رواية بين فئتين عظيمتين من المسلمين wuxuu ilaahay ku heshiisiin doonaa sababtiisa laba kooxood oo waaweyn oo muuminiinta oo dagaalamaya yaa ilaahay sabab uga dhigi doona inay heshiiyaan xadiidkaas aan hadda koor nabi ka maqlay marka nimayo rajay leedahay xasan hal aado saasuu ka wada kadibna nimankii waa la tagay xasan baa loo tagay xasan ibn ali waxaa la yidhi xasanow muslimiinta wixii dib la soo maray maantana xilkii aabbaha aduu kugu wareegay muslimiinta ha loo turo maxaad rabtaan buu yidhi heshiis qaado diyaar baan ahay buuri meeshaasuu xasan wuxuu go'aansaday isagoon raggiisii la tashanin oo ciidamadiisii aan la tashanin oo lagu diidan yahay go'aanka isaga ayuu go'aan geesinimo la qaatay wuxuuna go'aan ku qaatay inuu Muawiya la heshiiyo xilkana uu ka dago xilkii aabihii uu kala wareegay inuu isaga tanaasulo sidaas uu sameeyay waa la kulmay Muawiya xilkii ku wareejiyay kadibna isagiina waa isaga tanaasulay sanadku waa 41 hijriga la maraya sanadka waa sanadka lagu magacaabo caamul jamaaca sanadkii midnimada muslimiinta la dhahaa muxuu ku yimid tanaasulka xasan buu ku yimid radiyallahu ta'ala anhu arda nabiga ku sii bishaareeyo yiri wiilkaygani waa sayido labada kooxood oo waaweyn oo dagaalamayo ilaahay sabab uga dhigi doona inay heshiiyaan xasan muxuu ku qaatay marka sayidnimada tanaasulka ummadda dhiigeeda uu badbaadiyay ee uu halka go'aankeeda qaatay ayaa wuxuu nabigu ku tilmaamay inuu sayid yahay sayidnimo marka laguma qaato yaa ficil la qaadasho iyo orod iyo xamaas iyo waan argoosan iyo tolaa'i iyo waxa la iska celiyo iyo sayidnimo laguma qaato waa lagu jabaa sayidnimo iyo sharaf iyo cizi waxa lagu qaataa inaad taqaano tanaasulka وأضو واحد ترسنا يكتنازش أضو واحد شيئا يكتنازش أضو اللي قاعد قرديه صبرته تاسع سيدني ماذا يقيمه وجرته سيدا استراد يتبع وحي ليه العلماء وحي لها اللوبة هي إلا برتوحة كمذا أضو اللي قاعد قرديه اللي قد ظلمين أيوه هذا القاد قادته الصبر قادته وإلهي درتي وصبرت قارهان ليك مسلم سيدا أتكبت بهذه ليش الله تبارك وتعالى دنكي سلاغاغا هيلينيا هيلا إلهي بعد مركبه هليس وأكيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الضون عفي وحفي يتنازل تنازلي الله وحن عزي شرفه يلقم السيادي هدو أضونك هوس يسودقو oo isla weynidii kibirka iska daayo oo hoos isu dhigana Allah baa kor u qaada marka wax weey waxyaalaha shaytaanku uu ina leeyahay dulinima ku jirta ya sharaf ku jira ummaddu marka inay sida barato
وأن دلقاتك إيو برنو إسو صبر كلا برتو آدي آد بمهمتي حل قدهين أوه وحكا ليتو يدنا ميشو كجرتا هدي آد كان ظالم كيها كاقر درن آد إلهي درتي أقو صبرتو واد أدو القادتو إساقنا إلهي باد كديسو الله كاد وأرقوصن دونا نين إلهي اللي قدايهي يا نين إلهي اللي قدايهي وظالم ما نصيبتنا هداد مرك انت اسك صبرتو إلهي كديسو مسي إساق لفتيسا يعني وحويان عقوبته ويسود دقدقي ضاهي ميسو نفسك ضاهي معي وحليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة روح قرد الرضا وذي الظالم كا إلهي وحوكا أرقوستا أدونك آخرة وكا أرقوساني فإن البغي مصرعه قرد الرضا يظلمك ماشا وكدن بيواتاسوا عبد الله بن مسعود وحكسه نقليه إنه يري لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا هذا بور كله كحد جد بلا هيدا وقرد الرسال لها بور ده قرد الرضا وده الله وبربرين لها مركوا إلهي السنة دي سوي ظالم كا وقت ير إن الله سيتدير يوا صورة قل وقت ير إن يرد عشي يوا صورة قل وإلهي وكل رقم سنة الاستدراج والإملاء حقا إن الله يرك هذه يوا صورة قل لكن ظالم نتيجة دي سوى حوية إنه إلهي كأرقوست وسنة إلهي تبارك وتعالى أما قبيل هالنقطة أما الشخص هالنقطة هركاس أوحو كاني بيت سيدوك للشعر قضى الله أن البغي يصرع أهله أما يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر وحا أمر خاتك عيبول آيات القرآن كألا يري تبارك وتعالى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي متشر الدنبي كجا حبوني بدن عدة الصمي سيئن عقوبته كسو دقدقته دنبي كجا متشر كجا حبوني بدن قرد الرضا إيوه قرابة قويس نمدا لبدا سمدهان أيضا آخر كيد كوجرو أيها هذنا نفسي قودي عقوبته دو ويسو دقدقتها قرابة قويسك هي قرد الرضا هي ظلمك ساس دردد عندنا نديبو فيرنو سومالي دو ويس ظلمي ده سوما قبيل بيسو إريت ولا يسظلمي ديك بدن بالد هذه بدن باللغو تنتي لكن ما حد دعي وحد دعي qoyskii shalay isku duubnaa ee wax isla dulminahay ee dhiigga daadinahay ee isgarab taagna markay dadkii kala dulmigiisii galeen ayagii ma kala badbaadeen reer baa la isu cunay sidii loo kala dulmi badnaa reer baa la isu laayay markii dambe waxaas xagee ka timid waxay ka timid dulmigii la isu kaashaday la wada galay ayaa dib idinku soo noqday oo reerkii ku soo noqday waana sunno ilaahay waay labadii dulmi isu kaashata allah tabaaraka wa tacaala marka dambe waa inuu iyaga la isku dharbaaxa waay allah ka argoosanay kadibna kulli baa laynaga wada argoostay oo idinka arkaya wadciga iyo xaalkan ku suganna marka inaad ilaahay u daysood u sabirtaay waa nooc u baahan inay bulshadu barato هذا مثلا أركتو صور هذا ودن ما تشوفه ودن كهذا هذا سكة سود أحمرت وحلقة يا أبا لو الروح ويسوق عن قاضي إلى هذا الأركن لو الروح ومر ما يجينا أركتو ولا يا أبا لكن إن يسوق عن قاضي المبادنا سومالي ديجا من المركاتكتو وأبير تايب إن المال اللي يسفيرين بقى أمل يسدين بقى marka gacanqaadka inaga soo horeeyay waa kulayl inagu jira waa dabiica inagu jirta ma qana ma hilibkan badan waa u badinaya taqriiban hilibka faraha badan dadka hilibka cuna ma aragto noolaha inta hilibka cuntaay way kulushahay inta cagaarka iyo caleenta iyo waxyaalaha kala cuntana way qabowdahay soo saas ma
marka waxay ila tahay hilibka aan ugaali ku bedelano yaa bal waxoogaa dabiicaddan kulul baladha inaga baxdo bal muddo aynu ugaalida cunno iyo cagaarka culimadu waxay yidhaahdaan bini aadamku waa sax bini aadamku wuxuu quuto buu dabiicaddiisa yeeshaa waa mid ay yidhaahdaan doofaarka waxaa loo xarimay bay dhahaan culimada qaarkood markay tacliilinayaan doofaarka hilibkiisa waxaa loo xarimay xumaanta ku jirta marka laga tago waxay yidhaahdaan masayr ma laha waa dayuus saas daraaddeed inta cuntaa ay dayuusni baa ku jirta soomaydan arka hadda reer galbeedka yaa danka ma laha naagahooda iyo waxooda iyo waa laanna waxa doofaarkaa keenayay leeyihin marka waxaad cunto markay ka hadlayaan hilibka geela oo kale ka weysaysta maxaa loo yidhi nebigu wuxuu ku tilmaamay nooc shayطana'a baa ku jirta geelu waa qallafsan yahay hilibkiisana adag baa ku jira dabeecaddii adkayd baa ruuxa u gudbaysa saas daraaddeed dadka waxaa ugu adadag oo ugu qallafsan geel jira soo maha nebigaaba sheegay xadiiskii saxiixan ku yimi xaggee qallafsanaantu ka timid waa waxay quudanayaan waa marka waxaan u baahannahay dabeecaddan kulkulule uun gacanka hadalka ku bilaabanaysaay wax lagu wada noolaan kara maaha wax u baahan way wax badan in laga bedelo lana daraaseeyo asbaabta keenaysa saas way macna ayib mujtamacaadka oo madaniga ah ee xadaariga ah inta badan gacanqaadku waa ku yaryahay haddaad tagto kale maalan masaaridoo kale say u murmahayaan oo gacmaha isugu taagtaagahayaan oo marka dambe wejiga isu saarahayaan ood leedahay wallaahi maanta waa la isku dhammaaday unbay marka dambe kala dhaqaaqahayaan maba jirtaba marka mujtamacu waa inuu dulqaad leeyahay tanaasul leeyahay sabir leeyahay hadduusan taasi jirin mar walba waxa way gacanqaadkaasi dhibaatada faraha badan ka dhalanaysaa inugu badanaysa haddaan u dhimaadno sidee wax loo islaaxiyaa qodobkaasi marka la yidhaahdo dadka ha la islaaxiyo oo islaaxa ha laga shaqeeyo fiqhi bay u baahan tahay faham bay u baahan tahay labadan kooxeedee islaynaysa ama labada qabiilee islaynaysa see loo islaaxiyaa see loo heshiisiiyaa jidkee loo maraa dhibaatooyinkay isu geysteen see lagu xalliyaa shareecadu jid bay ka leedahay nidaam bay ka leedahay wax yar haddaan wax ka tilmaanno waxay leeyihiin dhowr jidba waa lagu xallin karaa jidka koobaadi waxa weeye dadkani hadday dhib isu geysteen dhibkay isu geysteen dadkan islaaxinayee dhexdhexaadinayaa inay qaataan iyaga culayska maalan waxbay kala dileen xoolay kala baabi'iyeen waxbay kala qabaan si mushkiladu u danto dadkan wax islaaxinaya u dhaxeeya iyagu inay qaataan mas-uuliyadda dhiiggii iyo xoolihii meesha ku burburay sidaana wax lagu heshiisiiyo waxa weeyaan waa midda nebigeennu sal alla alay wasalam uu tilmaamayo axaadiista rasuulku ku timi xadiidkii qabiisatu bnu mukhaariq ku yimid fii saxiixi muslim ruuxa inuu dadka wax weyddiisto oo baryootomo waa xaaraan ilaa 3 ruux mooye buu nabigu sal alla alay wasalam 3 ruuxa waxaa u bannaan intay dadka hor istaagaan inay yidhaahdaan war ha la caawiyo 3daa waxaa ka mida rajul taxammala xamaalatan fayas'alu xataa yajida xamaalatahu uma yumsik ruux dad heshiisiinayey oo culays qaaday ilaa culayskaasi uu iska gudayo dadka inuu weyddiistaa u bannaan buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam way dhacdaa oo dhaqankaa waynu naqaannaa maalin dhow hadda waxaa nairobi inoogu yimi rag odayaalahoo hoggaanka dhaqan ka mid ahaa oo 2 reer oo soomaali ahoo meel tuulaa isku dilay waxay soo qaadeen 1,800 halaad miya 1,800 halaal bay wadaan tuunka u saaran meelo badan bay soo mareen nairobi bay yimaadeen waxay yidhaha warnimayo bal geelan halala qaado oo 1,800 halaad xaggeen ka bixinayna kolley wax ilaahay waa u fududeeyey wax waa heleleen u malayn ma inay wada heleen marka xamaaladaasi wax weeyaan waa wax shareecadeennu jidaysayoo nooc waxay ka mid tahay dadka lagu islaaxiyo oo maslaxada lagu qaato waxaa ka mid ah
سيدة وتلمام الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله أن يعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض ما لها عند الأخرى من الدماء والأموال لبدك لنع إسهيا إني متكود كتنازل شيء عفيده وحي أي قولك لك قبتي هذا يديك تهي هذا حوالة تهيبة أنك إلهي كو هرينا يا وحي نجا مقن وإسكع عفيني ويسمين كران وأنا مدان صوت المعنى يوفي عنه فمن عفا وأصلح فأجره على الله ضروغ ذا وحا كم ذا ومد الصدحات أن يحكم بينهما بالعدل إني نقولنا تنازلين ادعو ليسكي قادتنا لهلين مركا إن لغوك لصاروا عدالة لغوك لحكمه سيبا عدالة لغوك لحكمه سينقونيسا فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال قلوا والبوحي تكالك أوجيستينو أما النف أي دلين أما حولا أي قبان أبا الله فيرين أيها تاني إمي سيقبتها تاني إمي سيقبتها تان محالك قبا تان محالك قبا لبضا لنا فيتقاصاني مركاسي كالقوصان أيها يعني سيدا أي أكل قبان أيها اللي سطوريها تان مثلا طبني بيدي شيء تان طبني بيدي شيء صوما ولا سطوريا طبن يا طبن ويسني ونسمنا كنتم جيلي قبان قالوا كنت جيلي قبان وحوين وقوم كلام مقنع صوما أنا كلا فاتح يسنا أنتوا حيسنوا فيتقاصان هذا مركز وحكوا كلام مقن سميهين ولا سطوريا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان بالغو فسرا هذه لبدي قوله إسهاي ميدي أي وحلا ديرتها التكالي وإذا فضل لأحدهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تن ديري قوضتا وحكم قوين قده تن وحلا ديريه وحكم قيهينا waxa ka maqan waa inay tartiib u gudato xaqeeda si wanaag ku jira u raadsato taa markaasi maxaa loola dhaqmayaa marka waxa loola dhaqmayaa kooxaha iyo qabaa'isha iyo cid walbo iskaashato oo isku garab ah waxa laga soo qaadayaa sidii hal ruux oo kale kooxdana isla tahay kooxdana hal ruux oo kale isla tahay waxay kala qabaan waa la isu ridayaa wixii dheeraad ay ku kala maqanna waa loo kala xukumaya kadibna si tartiib ay u kala raasanayaan طيب shardi maaha marka maadaama koox iyo qabiil iyo group la isu hayo shardi ma aha dhibkan dhacay ruuxii geystay oo kooxda kamid ama kooxda kamid in la ogaado shardi maaha in la yiraahdo kumu aha kii hebel dilay ee kooxdan ka dilay كمو أها ديجن روحي دلي روحي دادي كمو أها حول هبل كي بربري وما باهنا وحلولا حساب تما يا كوح يا كوح هوس لو سير رادين ماي مركي كلا جودان أيا أن كوح يا كوح بيو كلا جودان أيا قبيل يا قبيل بيو كلا جودان أيا وحي كلام قلنا ساسي أصول الرأسنا أيا لكن الرادين ماي يقولون جوده هو ده يا ديبك جيستي يقولون جوده هو ده يجا إسقبا يجا إسقبا ساسا معنا الله كلا ساري طيب شرط ما مركز روحي يعني كون إن لقوا أقعدوا جودها كون إن لقوا أقعدوا حبل لازمة وحليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل كي كعنت لها لفهانتي سيام الله كرنبا لأن الطائفة الممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد مربى هذي إسكاشانيان oo isu dagaalamayaan oo isu hiilinayaan oo koox isku yihiin hal shakhsi oo kale laga soo qaadaya hal shakhsi oo kale qoladana hal shakhsi oo kale qoladana hal shakhsi oo kale saas loola dhaqmaya wabidalika qawlu ta'ala ba arinda daliilu ah kutiba alaykum alqisas fi alqatla alqisas waxwi wa kala goosiga isu tuurida waay oo waxay ku timid bulay sida yaani mufassiriinta salafku ay tilmaamayaan kooxa islaayay
oo wax loo kala goynayay bay aayaddu ku timidoo qisaastu saasay ku timid isu tuura wixii la isla dheer yahayna ha la isu celiyo طيب haddii la garan waayaba waxa la kala qabo wuxuu dhan yahayba la garan waayo ila way dhici kartaa soo ma see la yeelayaa markaa wuxuu leeyahay فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار المال تيراد لك الدليل لما يقال حولها لك القبان لما يقال مع الله سمعين يا مركع وحوليها هي جعل المجهول كالمعدوم وحي لك جروايو وحن شيرين وكلا لك سوق قاضي وحي لك جروايو تيرادي سلام يقانو قياستي سلام يقانو قدركي سلام يقانو وضد بالإسكدلي حولها الإسكبابي وحين لك جرن ماي وحب لك سوق قاضي ماي مركع وحي نقول يسا مركع المجهول كالمعدوم قاعدة صلى مرينيا وحي لك جروايو وحن شيرين وكلا لك سوق قاضي سيدا سامركع لقوه الشيسيني طيب waxaa iimaanaysa mar kale hadayna laba qol waxba isla qirsanayn oo isku inkiraan dhiigan waad naga qabtaan iyo idin kama qabno maxaa la sameeyaa markaa waxa la sameeyaa markaa ijraa'aadka iyo dariiqa la marinayo wuxuu leeyahay dariiqii shariicadu martay khusuumaadka iyo dadka wax isku haystaa la marinaya markaa oo muxuu yahay midda wax sheeganaysa waxa la leeyahay cadaynkeen marxaati ma haysa waxaanaad sheeganayso cadayn ma u haysa haday tiraahdo maya waxa markaa la sameeyaa tan kale ayaa waxa la leeyahay ma ka dhaaran haday yiraahdaan ma dhaaranayno dhaartii baa la celinayaa qoladii wax sheeganaysa lagu celinayaa waxa la ma dhaaranaysan inaad xaq leedihiin hadday dhaartaan markaa way yeelanayaan hadday dhaaran waayaan oo qoladana dhaaran waayaan markaasi waxay noqonaysaa xaq waa dhacaya sida culimada qaarkood ay qabaan process marka waxa way procedure-kaas iyo dariiqaas marka la marinaya hadday wax isku sheeganayaan wixiina uusan cadayn ayadana waxa la marinayaa dariiqa shariicadu ay ugu talagashay khusuumaadka allahumma hadii lawth la helo lawthku waxa weeye waxa qoladani sheeganayso jiritaankiisa wax calaamo ah baa muuqda laakiin aan gaarsiisnayn heer cadayn aan gaarsiisnayn mesela nin baa la dilay xaafadooda lagu dhex dilay tuhmaa jirtay colaad baa jirtay xaafadoodii baa meedka laga helay waa lawth baa leeyahay calaamo muuqata taasoo kale marka waxa la leeyahay qoladan wax sheeganaysa waxa la leeyahay dhaarta ayaga marka dhaarta la siinayo konton inoo idinka kamida dhaarta xaqana yeesha waatii yahuuda nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri magaalada Khaybar ayaa nin saxaabada kamida oo la dilay baa xaafad laga helay nimankii walaaladii ahaa ayaa waxay yiraahdeen dhiiga waxaan ku sheegaynaa yahuud nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam cadayn miyaad haysaan maya de yahuud baa idin dhaaran markaas waxa oo yahuud dhaarteedu yahuud ba weeye ma dhaar yahuud baanu anagu ku xisaabtami karnaa way iska dhaaranayaan rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dhaarun baad ku leedihiin ama ku qanca masalada lawdku marka waxay ku imaanaysaa calaamad tuhma keeni karta hadii la helo marka waxa weeye kuwa dhiiga sheeganaya konton nin oo kamida la dhaarinayo marka kadib haday dhaartaan xaq waa yeelanaya shariicadu marka waxay ugu tala gashay waxyaalaha noocaas ee la isku qabsado dhan kulli waxay kala leedahay shuruuc bay kala leedahay wax ka maqan ma jirto diinteena hadda goor waxa dhacday muxuu ahaay Mandera waanagii culimada aan waa kiis ka galay laba reer oo waa isku dhacay dawladda xalin way odayaashii dhaqanka xalin way waxa la yibal culimada ha lagu dayo waanagii galay bil baan Mandera fadhinay ilaahay waa nagu guuleeyay bifadlihi xeer baan marka dejinay ay reeruhu ku wada joogaan oo waxyaalaha khilaafka keenaya buug baan ka sameynay buuga marka dambe dawladdu waxay u bixisay umal court bay u bixiyeen umal court yani culimada ana oday u ahaa marka buugii isaga markaan soo diyaarinay oo intaan labadii qabiil heshiisiinay
dawladdii u yeelnay madaxdeedii xafladii saxiixii aan ugu yeedhnay ayaa dawladdu intay akhriyeen buuggii baa waxay yidhaahdeen xaggeed ka keenteen shuruucdan ma looyaraatiin shuruucdan in lagu wada dhaqmo oo qabaa'ishu ku wada noolaadaan oo waxay isku tuhmaan oo sida lagu xaqiijinayo oo say biyaha ku wada cabbi lahaayeen say xeelasha say u wada daaqi lahaayeen wax xaggee ka keenteen marka waxaan ku nidhi waxay dhahaan kimilla yani waa dhaqanka bulshada yani dadkan waa dad islaam ah muslima diintooda iyo kutubta diintooday ku yaallaan shuruucdani marka يعني waxay u baahan tahay nidaam waxa jira diinteennu waxyaalahan dhacayo oo dhan bulshada dhex maraya haba yaraatee waxaynan xeer ka dejinin male laakiin mushkiladu waxa weey inagii baan aqoonin xeerarka wax lagu xalliyo inta wixii markii ay suuroobi weydo oo intaasoo inta la soo maro xalku imaan waayo markaasi waa marka u dambeeyo markii daawo la waayo waa in dab la isticmaalo markaa yaa cudurkii daawo waa loo waayo soo maaha waa in la gubo oo markaa maxay noqonaysaa gacan meeshii marka awoodi ka jirto nidaam ka jiraay markaa waxa weeyaan labada dhinac midka gardaran oo heshiiska diidan markaa waxa weeye in lala dagaalamo waayo fa in baqad ihdaahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل مركا أود بيوبانتا مركا ومدان شيء إنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن dadka qaar waxa jira ayna diinta iyo ilaahay ka baq iyo aqli iyo wuxuu ahay dhamiir iyo midna uusan celinin laakiin baqdin u baahan halka marka waxay u baahan tahay in awood la isticmaalo oo nidaamkii iyo dawladdii awoodii jirtay ayna u turin markaa meesha iyada ah dad baa markay saa u dhacdo xal kale inta la waayo nidaamka jira ay tilaabo qaado yaa waxaad arki qayla ka cays mar dambe oo aanu kiisas noocaas oo kale ku jirnay ayaa markii laga qoostay bay dawladdu waxay yiraahdeen military baan gelinaynaa military waa taqaanaan kiyo meeshii la geliyo bas waa yaa burburi yaa dil wax la waxay arkaan bacagta marinay dhiig baa daadanaya marka reerihii waa hubaysan yihiin waa la soo hubursanayaa khatar baa lagu jiraa gacanta hadday isa saaraan tobanaan baa dhimanaya markaas oo kale awood bay u baahan tahay in guri la burburiyo oo chief la garaaco oo islaan la garaaco oo muxuu ahay la kala eriyo iyo inay islaayaan oo dhiig daato keeroon markaa keeroon hal naf oo dhimata waxaas oo ka qaalisan hal naf oo dhimata baa ilaahay agtiisa miisaanka ka qaalisan guri baa burbura iyo xoolaha la baabeeyay iyo mid baa dhaawac aad ka hadlaysan maxay markaas oo kale waxay u baahan tahay awoodii la heli karo in la isticmaalo oo sharkani intuusan kordhin oo badanin in la xakameeyo meesha way meesha marka shariicadu leedahay faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah ilaahay marna kuma taliyeen dad mu'min ah la dagaalamo dad muslimiin ah la dagaalamo isaga laftiisa alla uu leeyahay waa mu'miniin uu leeyahay la dagaalamo ilaahay ma dheheen hadii xal kale loo heli karo hadduu xal kale jiri karo la dagaalamo marna lama dheheen laakiin xal kale aan jirin sidana marka maslaxadu ku jirta arrinkaasi marka waa arrin muhiim ah meelaha awooduhu ka jiraan oo nidaamyada xoog gale ka jiraan qodobka isaga waa daruuri wuxuu leeyahay sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah waxa ka horeyn kara qodobka isaga ah haday dhici karto intaan lala dagaalamin qolada dhibka waday la kari laayahay hadii la heli karo sidaas ka yar fudud in lagu xalli karo oo midalan kuwada dhibka wada in la qabto in la xiro kuwa dhibka wada inta reerka dhan la dagaalami laha kuwa dhibka la wada inta la qabto in la laayo garaacis haday ku filan tahay in la garaaco xabsi haduu ku filan in xabsi la geliyo taasi hadii lagaga baaqsan karo dagaalka taas roon laana waxa la raadinaya waxa weeye dhibku ka yar yahay in wax lagu xalliyo la rabaa siday ka fududahay in dhibaatada lagu soo afjaro lagu xalliyo la rabaa qaabkaas ay marka shariicadu u tilaabo qaadaysaa oo wax u xallinaysaa طيب oo nusuustu tilmaamaysa waxa inta dheer markaan doonayna inaynu wax maslaxayno markaan leenahay islaaxa laga shaqeeyo
إصلاح النوع عن هذا إسكاون مبعثر كا ومركي دبدا عبا وحي أضي وحي علماء اللي هلي كرو وحي معرتي سمدونا هلا يسوء أرورية اللي وحكا قروح بدن وسوتشيدين إني أمدو ميل والبا ديغان والبا سميستو هي أد ليداهدو هي أد إصلاحينتا وهي أد سياسة ديد آن أهين هي أد أي سوود تاقان علماء dadka muslimiinta hoggaanka dhaqanka inta fiyow aqoon-yahanka fiyow inta la isugu geeyo hay'ad la hagaajiyo xafiiskeeda leh nidaamkeeda leh ayadoo u taagan inay maslaxada iyo islaaxa ka shaqeyso siyaasad ma gasho qabyaalad ma gasho dhibka sidii lagu damin lahaa markuu yimaado loogana hortagi lahaa bay ka shaqeysaa waynaga maqanta laakiin shaki ma laha shaqadeedii way taala waana u baahanaa كلية وليبا معها ديبكو مركو لعاون إن لغو ياعيه كهورتك با سورتقال وحيالله قبل الله يدوحا كمذا مثلا سيمينار وعي قلنا قال ذا قبطة هي ذا قال ذا قبطة صلاة دين تهوغان كردقنك أيا سيمينار لو فوريا سيمينار كمركو لماذا وحوغا صحيح الله سيني يا سيمينار كاسي أسبوع لما أسبوع بيكون شريان وحلقة دعنا يا وعي قلين إيو يعني مصلحة إيو قواعد السيد له الشيسية وحي قانين بوحلوقو دريا يا قبان كرواي هي أدبي وبانتا وحكم إذا مثلا سيد الله وضع النولاد وبرشد وضع النولاد وحكم إذا مثلا نزاعات كي يضوضها سيد الله حليو هذا كسو هالين وحكم إذا مجال كاسي دad badan baa khibrad u leh khibradii see loo ururiyaa khibradu waa wax qaali ah khibrada hawshan loo leeyahay dad baa ka shaqeeyay meel ay ku qoran tahay meel ay ku urursan tahay midna ma jirto waxa kamida midalan bulshooyinku waxay kala leeyihiin qabiil walba wuxuu leeyahay curfi u khaas u leeyahay marka la heshiisiinayo qabaa'isha waxay u baahan tahay in la garanayo qabiil walba acraaftiisa wax laga yaqaan meel laga galo leeyahay مثلاً مالمها كوتشرني هولاس أي واحد سوق عن يدا هوش نوع عدكته وعن مري لعنة يا ريرها قار واحد سوق عني واللو دارينا يا هدي اللي هذا بقى إنه قعنت تاجي ويسدي بقى رير بنو أتك هذا نفتها نقبة يساون حلينا ويروحان الكالية كتاب قعنت يدي صارين إلا نصير بان هاللي موقت إني كبق عن دارت وحان الوايد دارينا ودي أشين waxay yiraahdeen xulimay annaga xaq iyo baadil midna kuma dhaaranee waxaad naga rabteen oo dhawaa idin siinaynaa dhaarta naga daay yani waxay u baahan tahay waxaad gelayso ee aad dhex gelayso reeraha dhaqamadooda inaad taqaano waxay kugu kaalmaynaysaa suluxa iyo waxaad u socotay inaad ka salgaadho waxaasoo dhan waxay u baahan tahay marka khibrada in la ururiyo u baahan waayo nooma urursana markay dhibaato dhacdo un baa la yaaxaayo kadibna intaasay ku ekaataa arrinkaasi waa arrin aad iyo aad runtii muhiim u ah muqtaraxna ah hadda waxaa ka shaqeeya howlahaas oo murmar isu taago wax ka ururiyo hay-ada bannaanka ka yimaada ama kuwa ay soo isticmaaleen laakiin ummaddani hay-ada ay leedaho hawshaa ka shaqeeyaayey ilaa iyo hadda ma jiraan hadday jiraan maalan hay-ado hadda jiro oo la yidhaahdo maalan buxuusta cilmi baadhista hay-adaa jira واي هيئado oo muxuu ay islaaxa iyo heshiisiinta iyo ka hortagga iyo ummadda soo jiidkeeda hay'ado noocaas inay jiraan soo ma ahayn waa loo baahan yahay maali dhawaydo ay culimada Soomaaliyeed Nairobi ay isugu yimaadeen qayb ka mid ah ayaa barnaamijkaas la keenay barnaamijka kaliya bashir laga helay laga qabtay waxa la isla qaatay in la sameeyo hay'ado noocaas oo deegaamada dhan ka howlgala oo ummaduna dhaqaale ku bixiso hawshaana u istaaga xafiisyadeeda leh sharciyadeeda leh yani wax weey la hagaajiyo oo bulshadu leedahay inagu aan leenahay oo hawsha ka shaqeeyo wali way socotaa waan insha Allah taala waxaan rajaynayaa insha Allah taala in waqtigeeda la soo bandhigi doono hawshaasi marka waxay ka mid tahay waxyaalihi wax fududayn lahaa bay ka mid tahay aaliyaadkii baa la yiraahdaa qodobkaasi aan kaga baxo masalada ku saabsan islaaxinta iyo bulshada in la dhex galo oo la heshiisiyo iyo intii Ilaahay naga waafajiyay waxaan u soo gudbayaa marar badan waxyaalaha keena harjiga iyo dagaalada gaar ahaan qabaa'isha dhexmara
iyo kuwa dawladaha iyo nidaamyada dhexmara laftooda waxyaalaha keena waxaa ka mid ah nisaac iyo dood iyo muxuu ahay ishaysi dhul ku saabsan dhulal baa la isku haystaa anigaa leh ma lihid waan magaalayn maysid baraag baan ka qodi maysid dhulal baa la isku haystaa arrinkaasi waxyaalaha ugu badan oo Soomaalidu hadda qabaa'isha isku disho waa aan wax yar ka tilmaano marka isagana asal ahaan horta shariicadeenu ruuxu dhul wuxuu ku leeyahay wixii uu nooleeyo dhul reer uu leeyahayna shariicadeenu ma taqaan dhul shakhsi leeyahay bay shariicadu taqaan adiguna dhulka ilaahay waxaad ku leedahay meeshaad noolaysood beer ka dhigto ama guri ka dhisato wax isbedel ku samayso derbi ku samaysato shaqo ka qabato dhulka waxaad ku leedahay intaad noolayso ama ma aha sharci aad u haysato nidaam jiriyo dawlad jiraay ay dokumentiga sharci ku siiso dhulkaasi milkiye khaas ku jira waa la leeyahay wixii inta ka soo haray oo dhulka ilaahay ee banaan ah muslimiintu ma kala xigaan asalku horta waa saas ma jirto dhul la yiraahdo dhulkaas inta ka kooban reer hebel baa dago looma soo dhawaan karo anaga dadka uga xaq leh shariicadeenu ma qabto qodobka horta qabsada aafadan meesha ka bilaabaysan waa halka laakiin sida ay shariicadu u dhigtay ومع دليل النبي صلى الله عليه وسلم وحيد من أحيا أرضا ميتا فهي له لولان عيدنا لهين روحي نوليست إسقاله ميت كوحل إلى هذا ورولك أن لقاه الرينين سيد إلهي وأبو ريا رولك ميت بلدها رولك ميت كأه وحق لكل بروحي أهر ريين نوليسته حديث بدن بار النبي صلى الله عليه وسلم تاس مركا حديث سيد اللي هذا وسيد صحدا لكن سؤال شو waxay tahay war qabiilooyin oo dhulkan ma kala liidin dhulkan ilaahay baa leh nin walba inta nooleysada ku leedahay Soomaali ma ku kala joogaysa intaan u akhrino oo shariicadu sida weysay inaan idhaahno inta ma ku kala badbaadayaan ma kuma kala badbaadayaan way fiicnaan lahayd inta inay saa u qaataan طيب hadayna ku kala badbaadayno marka dhulkiina la kala sheeganayo waxa jirana jaahiliyada حالنا أن لقى جاري كريم إلى أما أمضنا إنتال وعي جريو أي لقن دينات قادته أما النظام دولته حوك بدنه شروع بدن حوك كفليا له واحد تاجني وحويان دول كان أنا له واحد كسر يقول أخري آية أخري حديث أخري شيخ دول كان أنا له ريه بالبلد ده فود وحي سوق لي أنا حبض بنقول فناء حالكم حويا مركا ماشي نصعد حالك وحويه دول كان قاب كاويه اللي جو كلا بدبادو او انتي ديك دادن لها سيدا لغو دايو لغو كلا بدبادو ايا كشر ير إلا إسلايو ديك لداديو مركاسي لوا شربان كلا دورانينا مسألة معها مصلحة معها مفسدة معها لبا مفسدية لوا شربان كلا دورانينا إن اللي يدادو وردادو دولك مكالي حيكتانا اسكو فوفا oo reerihiyo isjiira oo markaasi dagaal iyo dhiig daata iyo aafa ay ka dhacdo inaan war inta uu amaad ka fahmaysaan ama nidaam idin kala qabto uu ka imaanayo war qolobo meesheeda ha ku akaato dhiiga hal la badbaadiyo markaasi waxaan dooranaynaa laba khiyaar mid ka fudud baan qaadanaynaa shariicadana waxa kamid ah maqaasideeda hadday laba dhib isu ka qabsadaan labadubana aad ku qasbanto meel aad uga wareegi kareenin labada dhib mid ka fudud qaado xal shariico iyo in loo hogaansamo meesha ma yaal waxa yaala inaad tiraahdo xuduudi ma jirto ee islaaya iyo inaad tiraahdo bal kala badbaado oo waxaad kala sheeganaysaan ku kala joogo oo dhiigu ha badbaado labadaas aan marka kala dooranaynaa laba shar in la kala doortadana shariicada maqaasideeda ay kamid tahay saan tilmaamay oo mafaasid iyo sharka la yareeyo labada dararna mid ka fudud la qaato ka culusna marka meesha laga saago la fogeeyo nusuustay ku sugantaa maxaa yeelay dhib ka weyn ma jiro dhiig muslim oo daata
نبينا صلى الله عليه وسلم كحديث صحيح كورني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم هل روحه مسلم ولا الدلو الدنيا ذو أردن أو بابا با إلهي كلفه هل روحه مسلم وحق در له قدله دمر يرق متولها هذا يا إلهي أكتي سكع علص الدنيا ذو أردن أو بابا marka rul yar oo laga hadlayo ma ah adduunka oo dhan waxa yaalo dhan hal ruux oo muslim ah ka qaalis hatta kacbada aad aragteen ee qiimaheeda aad aragteen kacbadaasi dhiiga muslimka ka qaalis sooma marka shayga soo qaali u ah nizaac dhuleed in loo daadiyo ma haddii hatta shariicada la waafajin kari waayo waa in mudnaanta la siiyo inuu dhiigu kala badbaado inta xal kale ilaahay ka keenayo tabaaraka taala qodobkaasi waa qodob muhiim ah نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحكم إذا أمثلة كتوسيسا رسولك أن صلى الله عليه وسلم مركي هو يعني ما كتشوي كعبدة رول كذي نبي إبراهيم وكل شيء غيب كم ذا أي قريشي كتكت ما قانا دركتين كعبدة markay dhisan tahay qayb yar waxa jira darbi ku wareegsan yahay oo laakiin aan dhisnay qaybta yartee darbigu ku wareegsan yahay kacbada dhulkeedii buu kamid yahay waa kacbada qayb kamid kacbadii nabi ibraahim dhisay gudahay ku jirtay qaybtaas quraysh markay kacbada dhistay ayaa waxa uu gaari waayay kharashkii nafaqadii baa u gaari weeday markaasay qaybta ka tagtay kacbadii intaray ka dhiseen نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه مركو مكة قبصدي والدولة نبي محمد كدسنتها صلوات ربي والسلام عليه أيا وحو رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة وحو كلية عائشة وسيجية وحي ويدي شيء قيب تايرت على رسولك إلهي وبيتك يا كعبة كمتها وحولي ها وحي رسولك إلهي ومحي أوجلين وين كعبة اسمها أوجد روايين وحو النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة خرج كأوجاري وايب النبي صلى الله عليه وسلم مركز قيب تاكو قابسده مركز وحي تري ما شأن بابه مرتفعا كعبة يريد هذا ما حي كر أتشكت ماش اللي يقلي إلا واحد ويان كر بيودي سنتها إلى أنت يكون قبل نساء يعني يريد عالي وأنت لقيت لابس هذا اللي قلي كرمان هنا تشرن شركوا في شوية كعبة ما قلي كرت ما حي يريد اللي يقلي يكر لوجو قاضي بيتري النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك تلك بسيدة سمي بن عائشة يعني قريش ما مركي لسه ساو قلي هم حي ساو قياله ليدخلوا من يشاء ويمنعوا من شاء ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء كعبدا إن الإنسان نقول مال عدول بإسكاك شو نينكي روانا أيجو أي جليان وشرن شر أساران نينكي إن الربين أي أديدان بيقول على كلام بلي هذا يقول كلا سنة الله وقالوا قدر دوري لها سوما نقول بإسكاك جليله مركو حي أقول لك الميرا يجو ما مشانو نينكي روانا أي ساران نينكي روانا أوسن قاعدين بقى ساسي كور أقول قادين يريد كعبة وحيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن هل كان نصعنا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض هذا أنا كبقين غير كأذكر لتي قريشين جاهلية دي بيكو عصبيه كعبة هدان ديبو هجاتشين وحن كياب إن قلوب تودو إنكرتو أي كعان هدان أنتا كبقين كعبة إنتان دميان ديبو لسيلها بالنبي صلى الله عليه وسلم مركزان أساس كي إبراهيم كعل لها الرد ديدنا رول كان لسمي لها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن وحان أسمينين وحان كياب يا إنت الدرين كقادان وحوغا إني كعدون ميشا كيماتو سيدي ديبو إساقد داي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيدي ديبو كوكيري هودي فروك قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فروك قادي كعبداسي إنو سيدي كعليا وحكيابي إن أي دباتة كدلتو دباتة داسا كويني سيدي دا حسكا أهاتو رسولك كغتك صلوات ربي والسلام عليه كذبنا كعبدة دي تاريخ بيلا هيدو مركي الدنبي حلقي عبد الله بن الزبير أيا مكة مدكة لنه كذب انتو الدميي ayuu wuxuu u dhisay asaaskii nabi ibraahim buu ku celiyay
عبد الله بن الزبير مركي للدلي وحجاج أودلي أيو مركا كعبدي أنتو دب الدمي يهلكي كعلي أو يريين الزبيري قشن كيس مرة منه كعبده ماشي يدي بنكو علي هذا سيدي بي مركو كجوكتا الإمام مالك بالويديو ليلي كعبده دب موحلنا حلقها الرشيد من هذا المالنية ماشي يدي مكو عليها وعيدي فرها كقاد معايا لي كعبده هداد أدونا هدا أطفرها لقش waxay noqon doontaa nin kasto madaxa u yimaado inuu isaguna yiraahdo anaguna maanta aan duubinahay ayaan oo dhisay marka adeero faraha ka qad buu sida iska aad marka nabigeenu sallallahu alayhi wasallam sharbu ka baqay sida uu isaga daay ninkii masaajidka ku kaajay reebadiyaha masaajidka soo galay markaasuu halka kaleedhi la istaagay halkaasuu ku kaleedhiyay oo dadkii wada arkay مسجد ما بيقارن بيحوم كيسة يمحل لقوا سمية باديرو جوج مودا يعني اللي بادية ولا سكة اللي دي أصلا بس هاجي كوكا اللي دي بقى صحابة ويكون قمامين إلا قرع على الدمار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورداية كايدة هذا ميسا كايدة كوكا الكورين داية كادي دي سويس كلا ميسا مركو كايدي بساجي كلا ميسا أيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودان بيئة كانوا ميشا كشبا ماشي كايدة ودانتي بيها لو شوي خلاص أسقينا ويروح وكيري وماشي المسجد بالله يا ماشي عبادة يا صلاة يا ذكر الله بالله قلت لك عليه ما لو كاتش معه مساسا مركز أبو جهر السبب وعربي باديها كيف مركز ويمركوا ليه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا إله أني محمد كريم نور نحريسه كون هو نحريسني كون يقول قمامه يقول قيلي إله هو نحرس لكن أنا محمد كريم نور نحرس النبي يقول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا ورله نحرس دي سوا واسع ما حد علي أديك كريم يروق كوبتي برسول صلى الله عليه وسلم مركا أوفيرس مساجد لقوا كاتشي هذا درجت ونين كادي ماشى الله تاجي سومينا بوركو بلونه وربورها كوب بلابينا كايد هذا مستداف أنا ديم كقدرنا يا قدر هذا قرع عدان سوي سوي كايد يسكو كلا جوين باي oo meelo badan kaayadu gaari mayso oo isagii marada ka gaari mayso mise hal meel inuu ku kaajaroon meesha ku dhameysday daay shariicadu marka waxay leedahay qawaacid la yiraahdo falkan aad sameeynayso haduu waajib yahay maxaa ka dhalan kara falkan la sameeynayo haduu mustahab yahay maxaa ka dhalan kara waxa ka dhalan kara waa in la qiimeeyo maalaadka kadibna waxan lagu dhaqaaqayo waxa ka dhalanaya haduu ka shar badan yahay kan xun ee socda la deynaya markaa كان شراء حنا شراء هذا عن وافق سنين بل لدينا ياسين لو باتشيو متكون وإيمان كرا قواعد شراء هذا عن كي كمت أريكاسي عن قضب كجبحو وحن كوجب جبينيا وحن كوجب جبينيا دي على إنه قضب كان وجودن بيه أو حلي جاي فتن كتاجيهين وصيدنا وكاليتو هرجيجا يفتن كي آفات كأي مسلمين تهيستان حلوشة وحاكمية بلشدة نينكي أن وحكا قبن كرين إنو وحكا فضوديو دقال دا يعولاد دا يدباتا دا بلشدة هايسوتا نينكي أن وحبكا فضودين كرين لفيه سهلا بو لفيه سهلا عرب يا هدنين دناها قبرو هولاها قاسكا قبسو هولها هدنين هكور دونين هتحليلين شيكدو دا هرادين فرحك قاد بيرت هذا بيرو يا دكان كاجا يبسو كان عصده اسكن نقو سوما ذكر بيرلي اسكن نقو حولها قد نقو دنبها كجل انت تكعرر bulshada intaan waxba ka qaban karin ha ka danaysato maxay keenaysaa inaad ka danaysato waxay keenaysaa dhibkii inuusan sii badanin laakiin bulshadii oo dhan haday noqoto kulligeed mid dagaal ku jira iyo mid taxliilinaya iyo wada siyaasi gabadha foodleeyda siyaasadda taxliilisa wiilka dhalinyarada muxuu ahaay kurayga siyaasaddu taxliiliya 60 jirka 70 jirku waa taxliiliya rag iyo dumar siyaasad iyo hawl socota iyo dhexda loo taagay hadii wuxuun u la kala shaqo tagi lahaa soo culeysku ma fududaadeen ya meesha Soomaali dhibaatada haysa kaas waay rasuulkeenu wuxuu ku talinayaa salawaatu rabbi wa salaam alayhi war markay dhibaatadu dhacaan kala danaysta ninkan meesha maslaxa ka keeni karinow
كودح شركاجا يكهذا الهين هذا يكورهين هذا دبا أدونا وتكون رفادي وتكون دمبابي دبنا وتكورني وحبي فضودين لهدين وكلا ضليسان الله نبينا صلى الله عليه وسلم وكحديث صحيح حديث كأبو بكر في صحيح مسلم غير كيبا عن أبو داود غير كيسو صار رسولك صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة دعي دونت مسلمين تدحوا ذا إيمان دونت يكون المضجع فيها خيرا من الجالس نينك تشيفا أو دين عوتشيف وحور راما من كفرديا والجالس خير من قائم كفرديانا كتاغن بو راما كتاغن ميدك صعدو راما كالصعدانا ميدك أرديو راما نبنينكو كتلابا يريه أما وقفوقيه وكخير بدي مركز أوحوا إلى صحابي يا رسول الله ما تأمرني أرندو مركز سيدان نقطة محادي قولت لنيسا محان سمية النبي يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له إبل فليلحق بإبله نينكي جيل لجيلي سايسكاد ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه نينكي أرلنا أريقاقات ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه نينكي دلهونا بيرت هذه دلكاقا إسكاد مركز waxay yiraahdeen faman lam yakun lahu shay'un min dhalika inta min ruuxan laan ka war geel mali oo ari mali oo beeran u carrar male magaaladiina waa jooga dhibaatada meesha ka shaqeeyay waa jooga aniga xageen aada rasuulka ilaahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam falyamad ila sayfihi falyadrib bihaddihi ala harra hubka aad haysato intaad aado hubkaaga burburi ya hubkaaga burburi ثم لينجو ما استطاع النجاة كذب نسي الله سيدات كوبت بادي كرت كوبت باد معلق عرية كعن كل ديك لها نقولش كعنت هذا ديك إلالي أفكاك ديك إلالي قيب هكر نقولن هك قيب قادن هدح جرين وحبوات كقبوا ويد صومه وضعي وكا علوسيا وكا حق بديه تنهاج قبص مركا صومه نبينا ساسو كتلي سلعة وحافظودان يا عليسكي يا مشكلة دي هيستي بافظودان يسمر بلشدي قاربضونا كم إذا كدنا يستي إن بيكوسو هذا يسمر كصومة ويحدد ما يسمر كا لكن هدي بلشدور دان أي وحي النقطين يكون حجرت مد قال بحية مد تحليلية مد عن كجيستا مد قبية مد رجلية وح مد تحليلية يا كل بلشدي أردن بأمرك ماشي عليسكي وابضنا يا مرك كلنا وحوي واللغو ذا الدبابية وحكى له رسول كانوا صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رسولك صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم هذا درك ضدك يوبلنتو دي قسنتي وخفت أماناتهم أمانة دين خفيفتي وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه سدان ضدك أي نقدان ويفود يميلوا بإسلاك قلان يا وآفدوا أي سلحق الشهاء رسولك صلى الله عليه وسلم وحاد سميسا مركا إساقا إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصتك وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام أبو النبي صلى الله عليه وسلم حالة مركا سيدا نقول قوريقاقا تشوك قوريقاقا لازمو لحقالك ضدك إسكا يريك عربكاقا عشو عربكاقا كعدكو إلا عربكاني والسيف وكلا واحد بل سيفته وكدريه سيفته نينكا كعنتا كوهي انتي قادي قويسا لكن عربكو وحو قادا وماذا فربان بوسكو بابيها عربكاقا عشو رسولك صلى الله عليه وسلم هانو وخذ ما تعرف وحي عد إذقرانيسو إيه أن شكي كتشرين قادو وحي آد إنكرتو شكي كاقلا أما آد قران ويدانا إساقاتك دناها قود يا أرمها أرقود بلشدنا فراها كقاد أرمها خاص كانوا كم مشغول بريب صلى الله عليه وسلم دنت هذا خاص كأ دنت هذا متغنى كنحسي كاقا بيرت هذا حول هذا عرور هذا غير كاقا كنحسي كاقا وحبر الشد هذا دناها خاص قص ماشي وحول كقبوا ذي صومه أدوكنا هكو جبنين نبكنا هكوردينين كدنا يسوع ورحل كازي وحلك الرسول كأنه صلى الله عليه وسلم سوماليا أنت أم فردية فردينون تحليلين إنه بحاسو يري بحر دعي هيبل بالرياضة كان للسبي وحنا دعي عنكوا إنه إنك أنا وحمينا نسوي كوردينين مشكلة دينا وحمينا كحلين دم بي في دبعتنا وانكر صنعي معنى هذا وحويان
maslaxada qayb ka noqo hadaadan ka noqon karaynina dhib iyo culaysa ku noqon saasa nabigeenu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intaasaan ku gabagabeynaa kelimadii saddexda xalaqa ahayd wixii inaga khaldamayna ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo dhaafo looma qastin wixii khaldan wixii saxsanna ilaahay tabaaraka wa tacaala baa tawfiiqda iska leh camalkeeda iyo dhaqankeeda allah ina waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ummaddan quluubteeda allah isu dumo wixii aafe iyo dhibaato haystana allah ka dulqaado midnimo iyo qarannimo iyo walaalnimona ilaahay ha ugu deeqo cadowgeeda iyo wixii dhib ku hayaan allah ka qabto allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid